awowhii markaa yaraa wuxuu dhihi jiray qof walboo dunidan ku nool awood ayuu leeyahay balse hooyaday waxay dhihi jirtay gabadha si walba oo ay awood u leedahay haddii ay wax jeclaato daciif ayay noqonaysaa oo jaceylka ayaaba daciif ka dhigaya waxaan rabaa maanta inaan qiso idinkaga sheekeeyo qisadaasoo ah mid ku saabsan qof la jeclaaday qofkaasna hal qof oo kaliya ma uusan jeclaanin filimkani waxaa lagu tarjumay qofkaas waxaa jeclaaday laba qofood muqdisho waraasanju kii ma aragtay mayey mii maqloosin deef ma aragteen maya deef ma arkin walaashay baaruu ma aragtane waan waaye maya baaruu ma arkin aniga baaruu orsigaarka kaan ku lacabay haddii kale aabbaha kuu sheegaa may ma cabaysid ninkaan aad u jeedaan waa Fishan Barbartaab waxaana loo doortay wasiirka tuuladeena ninkan haddii aad doorataan tuuladani wax badan ayuu ka bedelayaa horumarna wuu idin gaarsiinayaa waa inaad doorataan mudanaha aabe deefaaka xago ku dhuumanaya mujada dhab baa ku haya waaye anaad biga fikirayso noo taala shacabkiinan halkaan iskugu yimid haddaba si fiican ii dhegaysta dhulkan waa dhulkiinna cid idinka qaadan kartaa ma jirto hadday isku dayda xataa inay indho kulul ku soo fiiriso indhaha ayaan ka soo saarayaa hortiinnana ayaan keenaya haddii aad doorataan ninkan idiin hortaagan waxaan idiin ballanqaadayna waddanka inuu wax badan ka beddeli doono dhulkiinnana horumar uu gaarsiin doono taageeradiinnan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin waddankiinna horumar ayuu gaarayaa wiilkaygii aabe hadda iga tagtaan waa cidlaa soo moogid ha iga tegin ila joog wiilkayga aniga meel dheer kaama aadahay waan ku soo laabanaa samas wax ilaaliya hortkan beenteed waaye haddii adiga aad i raacdid ogow baaro yaa ogaanaa marka inaad baaro ogaatid ayaa lagaa rabaa haddii aniga aan kaa maqanayn adeerka ayaa kula joogo adiga waqti walba maxaad cabitaanka iskaga badaysaa iyo sheegi karee maxaa dhacay dhimasho miyaad rabtaa maxaad la taagantaha halkan maxaad wax dishaa fiir adiga meesha aad taagan tahay waryaa adiga aabbahaaga lacag fara badan ayuu kaaga tagay lacagtuu aabbahaaga kaaga tagan kala bar aniga ayaa iska leh marka waxaan kaaga baahanahay 70 malyan inaad dib igu soo celiso bas haddii kale waad dhimanaysaa taadan ku yeela 70 malyan dib aan kugu soo celina laakiin waxaad samaynaysaa adiguna 20 malyan dib igu soo celinaysaa okaadi deef warkaale adiga nacas miyaan kula ekaaday mise wejigayga ayaa nacasnimo ku qoran tahay adigaan lacag kugu leeyahay lacag ayaan ku socdaa nacasnimadaday kaa muuqataa labadeena qof 70 milyan ku leedahay see ku dili kartaa waa inaad qofkaasi dhaqaalaysataa saa lacagtaada ku hantisoo ku hesho aqliguna ha shaqeeyo waqti walba aqligaadan ha shaqeeyo adeer warya oy daaf bixin oo gadiino ku leena gacmaha iga door kaal warya soo bax warya banaan ku dhiya aniga miyaad gacanii qaadaysaa dulayaan war isii daya dabadilifkan ma dhaafay isii daya noocaanoo kala naqaana anaa dabd waray dhaaf war isii daya akhbaaraadka noocan oo kale mar walba ayaan maqalnaa magaaladan wayba ku sii badanayaan dadka hantida leh kadibna dagaalka sameynaya mar walbana waxaa la sheegaa dadka familkooda siyaasadda ay ku jiraan inay dhibaato sameeyaan halo mudana saya deeb waa la afduubtay marka hore adiga isdeji waa inaad isdejisaa yee ahaayeen dad deen kule ayaa afduubtay waxbaha walwalna adiga isdeji leh oo keliya xalna waa la helaa deef habeenkaas dhibaato fara badan ayuu la kulmay wuxuuna noqday habeenkii ugu dhibaatada badnaa noloshiisa
balse qisadiisa intaasoo keliya kuma ekeen. deef khiyaanada loo geystay qof kale uma uusan geysan ee waxaa qiyaamay isla adeerkiisa. dadka siyaasadda ku jira qaar waxay jiifeen isbitaalka, qaarka kalena magaalada ayay galeen. adeer waxaan kaa codsanaa 20 milyan inaad dib iigu soo celiso lacagta inta kala hartayna waan ku siinaya inay fahanti isku day heer magaal iska dhig doqonnimada dhaaf waryaa hoy mudane gar u khadamiya waryaa ninna wuxuu isbitaalka u jiifay dhiig la'aan haysa darteed, ninka kalena wuxuu bannaanka u joogaa inuu dhiig daadiyo. meesha rabna waa imaan jooji gaariga. waa kana aniga maxaan sameeyey waa fududaada bal arrinkan saaya hadduu ogaada ka war waaya haddaba waxaan ku qasbanahay meydadkan dadka indhahooda intaysa qaban ka hor waa inaan qariyaa markaas waan asturaa waa kana anaa isgeliya hirigtaan iga raali noqo aniga run ahaantii lama aana socon dadkaas inay tuuga ahaayeen. waxaan u malaynaya inaad aqoon isku leedihiin. saya aniga waxaan kaa rabaa ninkaas inaad wax fahansiiso sababtoo ah muhiim ayuu noo yahay. waxba ha ka baqin aniga ayaa wax walba fahansiinayo adiga midda aniga waa leh. kaale adiga sidaan maxaad ka wadaa war shirkaddiinna ayaa 70 milyan aad adiga qabtay darteeda loo iibinayaa siday ku dhacday middaas miyaadan fikiraynin maskaxna aadan lahayn ha samaynin sidaan maskaxda maxaa iga qaaday shirkaddaas aniga iskale wixii la doonana waa la iibina maxaa kaa garaaday ka bax baddaas war hantidan aabbaha ayaa u soo tiir iyo tacabeele adigana waxaad ka dhigaysaa hal bacaad lagu lisay khayradayga yaree war aniga adeerka ayaan ahay hantidaanna aniga ayaa mas-uulka ah adigana looma baahna sidaad doonta inaad yeesho war aniga sidaas ilama hadli kartid adigoo dhan aniga ayaa mas-uulka ah wax aad samayn kartaa haba yaraatee ma jirto war adiga haddii aadan hantidaas ka naxaynin walba sharafteena ilaali. maadaama hadda idinka qisada aad ogaateen sidoo kale qisadan anigana qayb ayaan ku leeyahay. magacayga waa jandarmooki. aabbahay wuxuu dhalay 2 gabdhood. labadeena gabdhood midna waddo ayay qaaday. waaya abaay bay bay hadhow ayaan ku soo wacaya okay anigana waddo kale ayaan qaaday. waxaan halkan isku yeeray in aan idiin baro gabadhayda oo ah garabkayga waa gabar aad iyo aad ii dhammaantiin waan idin salaamayaa. waxaan rabaa shirkaddeena inaan horumar sare gaarsiino moolal fara badan aan dhisno dhismayaal ganacsina aan samayno. bravo darling do you have Janice tonight aniga wax walbo aan samaynayo waxaanu samaynayaa aabbahay dartiisa qof walboo siyaasadda ku jirayna markaas wuu u yaqaanay. dhibka kaloo ii haystana wuxuu ahaa mar walba deef ayaan ilaalinayay. soo hadal inaa imaqsho diyaar muu tahay adeerka wuu xanuunsan yahay. horey maxaad igu sheegi weyse warkaan adiga sakrad ayaa kuu jirta maskaxdaadana taamaya sidaas darteed ayaan kuugu sheegi waayey. mudane deef ayaa ku soo wacay la hadal oo fiicana haa okay waaya inaad jiifto looma baahna wasiirka ayaa ku yimid waa inaad soo kacdaa ha jiifina soo istaag markac fadhi kuuma yaalla adiga
binki arooskeeda ayaan diyaarinaynaa weliba 4 maalin ayay nagu qaadatay wax walba soo diyaar maaha haa wax walba waa diyaar adiga see tahay marka xaaladaada ka waran waan fiicana ahlo walaal ma imaqashaa warbixintaadu ay soo gaartay sida ugu dhaqsiya badan guriga waa inaad ku tagtaa hooyana ha dhibin amarkeeda waad qaadanaysaa way faantaa fila haddii kale ani adiga way naga tafanaysaa waaya qof ayaa rabtay inay kula hadashay la hadalba dhiib hallo ma imaqashaa ها ahlo walaal soo hadal qoftii la soo baaro ma hayn aha iyadu waay goobtaas maxay ka qabanaysaa marka adeer inay fiirsaayo u maado meeshas waxaan i weydiin dagaalka labadiina iga dhaxeeyo adeer soo lama kulmaysid maya lama kulmaayo gudahan inaan ogolo lagama yaabo halkan ayaan taagnaanayaa adeerna waxa uu sameeyey waa wax qaldan ilaan dad anaga siyaasadda nooga soo horjeeda ayuu garab siiyey mana loo baaneen inuu garab siiyo waxyaabahaasoo kaleetaan asaga xataa sharaf daro ayay u keenaysaa aniga halkan ayaan taagnaanayaa gudaha uma gudbaayo dhegayso annaga siyaasaddeenu ku jirnaa lacagaynu shaqaynaa lacagta annagu shaqaynana nin baa raba tartiib inuu isaga baashaalo wuxuu doonana uu ku sameeyo waxyaabahaasi wax annagana qabta maahan kana yeeli mayno middana inay dhacdana anigu raalli kama ahay haddii taas uu ku sii wado arrinta uu joojin waayo soo maa dee adigu laftaadu nin baa tahay ilaahay nin buu kaa dhiga waa iska dhicin kardhaa iska dhici baan ku dhihi lahaa niyo oo kaale ma ninka noocaas hadda annaga meesha u fadhina adaa laba xiniyooda naga dhicin wax yaraabo waan soo laabanaa baan kaa rabaa dhibka jira muxuu yahay dhibka jira muxuu yahay ayaad leedahay war waa kusee adigu isdejiniyo maxaad samaynaysaa nin weynna waa tahay se wax kaa cunug yar oo khasunaasa meesha noo soo fariisay markaasuu raba lacagtan inuu ku tuto ma ka yeelay taas aniga warkaale adiga ma la socotaa waxaad samaynaysa mar walba waxaad doonta miyaad nagu samaynaysaa annaga war is ilaaliyaan ku dhahay mar walba annaga hana ceebayn adeer waxaan samaynaya aniga waxaan ogahay halkan inaan sii taagnaado marka maha waa inaan gurigayga aadan waan ku qasbana mid ah qayladana iska dhaaf adiga hadda maxaan samaynaa isbeddel ha iga filan waxaa doonta adiga samayn jandarmukii aniga ha iwaalin ee katiinkan gacanteeda ku xihan waa inaad iga furtaa haa sababtoo ah anigu qof walan ma ahi iga fur codsi iga tahay waa kaa codsanaya ha i quursan maad iga furtid maxaad ii dhegaysanaysaa iga fur maxay tahay maamus xumadan aad igula dhaqmayso iga fur anaa iska fura iska dhaaf waa inay deef mar walba wuxuu niyadda ku haya baaro iyadana markay aragtay dhaqamadiisa way isaga fogaatay noloshiisoo dhan waxayna isku dayaysa booskiisa inay buuxiso dadka magaaladoo dhan way dhiiragelinaysay garab ayay siinaysay balse isaga mar walba baaro ayuu niyadda ku hayay xitaa iyada noloshiisa ka fogaatay weli niyaddiisa kama aysan bixin wuu xasuusan jiray mar walba deefna ilama ahan baaro inuu ka safri karo aniga ahaan waxaa ila qurux badan gabadhaan inaa nin u guuriso weliba sida uu dhaqsiyaha badan sidaas ayaan ila eedada wiilkaaga marka hore guuri teeda ka bax laguma dirsanine gabadheeda sidee wax ka yahan qoftu waa qof weyn aabba anigu waan saxanay waan ogaa inay weyn tahay laakiin siteeda maxay u fiirinaysaa wiilkeedaaba joogo oo aniga iga weyn gabadhayda hadalka maamada ee ku dhahdo maahan inaa ka xanaaqdid mar walba adiga ii qosol abbaayo shaahigaa gurigaaga ka geris waa shaah macaan badan laakiin aniga lagama yaabo inaa gurigaaga imaado misna shaahiga saa cabo baaro hooyadeed deef reerkiisa wax walba ayay dhihi jireen sidaasay taa way ka aamusi jirtay intaas waxaaba ka sii daran mar walba iyagu way isku dhici jireen saaxiibna ma ahayn dagaalna kama dhexeen idinka buuq iyo dagaalka waa inaad joojisaan si aan idin xaliyo haddii aad buuq wada goorma idin xalina aniga joojiya waa inaad joojisaan deef aabbihiis markuu dhintay kadib deef adeerkiis ayaa wuxuu isku dayey inuu buuxiyo booska walaalkiis balse isaga siyaasadda kuma biirin ee waa loo diiday waxaana la dhahay ninkan waa nin xun siyaasaddana kama qaybgeli karo sidaasay tahay mar walba wuxuu isku dayaa dadka magaalada inuu garab siiyo haddii ay dhibaato haysatana uu dhibaatadaas ka badbaadiyo wuxuuna xasuustay dartaaranka walaalkiis oo ahaa in magaaladooda ay difaacdaan waa imaanay soo dego waa ku salaam adeerka waa laga qaaday waa soo dheeraata maanta xoogaa soo doonta ii sheeg balhaayo baryahan dambe xoogaa waa iska mashquulsanaya soo ma arrimo gaar oo micnaha aniga ii khaas
balse hadda martiya ila socoto martidaasna waxay rabaan in adiga inay kula kulmaan haddii ay suurtagal tahay wareen horta aniga fadhigayga inaan ka kacaha iga sugin runtii weli isma aadan bedelin adiga booskaada ayaa taagan tahay waa isla weynidaa ka wadana laakiin dhib mala hadda iyagaa amar siinaysa soo socday kaaliya waa kuwan ay istaaga maxaa sugaysaa istaaga idinkan amarka qaata waa idinka qaaday bas waa idinka qaaday waa idinka qaaday adiga horta waxaan kaala yaabay weli sidiyaab uu madax ka kantay gabartay aabbaaga madax adeega ma kala warantido yaakhay waxaa fiican xaaladan isku jira inas iska soo dejiyo aniga usan si fiican aan isku fahanay yaakhay adooga wax fahamsii waxaa siisaa habeenkii bocorka titowsi beerkana uu dago balaayadana iska dhaafo bocorka titow ninkii cuno maskaxdiis waa faysanay kaaliska aragaan ku dhahay marka xaal kale xasili meeshaan beesa taala gabartay adooga la hadal waaya adeer bravo saana karoa gabar iga dheh aab waan sii baxay okay gabadheedi ar saaxiibkayga gabar khatara dhashay akhay ha darawalkaada in laba caadi maaha dhaqsi gaarigoo kaaga sii hormaray waan arkaa laakiin ingiriiska waxay ku maamaahan look before you leave waadna fahmi kartaa sooma waan arkaa ingiriiska inaad u dhagan tahay balse ma laga fiicno waxaa ila fiican aniga soomaaligaad ku hadlaysa inaad isticmaasho waa taladeedoo keliya ulaalna kaxee run ahaantii milan wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u wanaagsan baaruuna mar walba wuxuu jeclaa inuu garab siiyo oo uu ka agdhowaado balse maxaa dhacay baaru waa laga afduubtay oo waa laga watay walaal gabadha waa la afduubtay dumaasha waa la afduubtay qoy kala badbaad haduma ii sheegaysi waaye naga tag abooraala kala gamisoo kaliya wax kuma leed xabadna waa inaan kugu dhuftaa walaal waa xabad aan ugu dhufan abooraala waa ku baryaa qalada galiski cafi walaal nambar qabsaxtaadii ma dhahan baro 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 maxaad ugu jirtaan maxaad marka sii soo dabagalaysaa maad iga hartid waad isdaba iga har ninka akhbaar saxo markuu ii soo gudbiyaan adiga dartaa gacanta saxbad ugu dhuftaa kala soo kaamus gacanta le kaaga dhacda haddii wadnaa kaaga dhileed ka hor mar walba milan wuxuu isku dayahay baaru inuu cafis weydiisto war dadkan jinni ayay qabaan alasaynimadan ayayna ballaminayan maxay ula jeedaan hawl ma ka dhacda miya marka xilligaana ballaminayan saaxib dulqaad yeelno xoogaa dulqaada loo baahan maxaa waay dulqaadka wuxuu u baahaya in la socono laakiin aniga dulqaad weli ma aanan socon weli ma aysan imaan fiir way iska maqayin annagana waa nimid meesha kama yeelayaan ku dhaadii ay imaado ayna soo daahan way saaxib seetaan soo dhawow ku salaam waa ka qabo ay halabtii geli waa ku gelshay war badan yahay kale soo saar sidaan ma soconaysa wiilkeyga waa inaa isbeddel samaysaa waana ku qasban tahay aniga soo maa siyaasadda waan ku soo laabanayaa garab ayaanu ku siinayaa laakiin adiga inaad isbeddeshid waa qasab saan haddii ku sii socotid anigaad bay qarribaysaa marka xaaladda waa inaad dejisaa sidaan le inaad ku sii socotid suuragal maahayn aawe adiga inaad ninkan wax fahansiisid waayo oo uu isbeddel sameeyo hadduuna isbeddel samayn wax soconaya ma laha haa aniga isdeji adiga xoogaa nasiixa hay laakiin waa ku qasban tahay adiga inaad xaaladda sidaan ka beddeshid aniga waa yeelaan noqday qofkii bedeli lahay waa adiga marka adigii haddii sidaan aad ku sii socotid xoogaa isjira dejiya maxaan isdejiyaa ninkana dhiigkii uu kicnaa awgeli afka awgeli annaga mar walba waxaan ku dadaalayn adeer caafimaadkiisa sidaas darteed dhakhtar khaas ayaanu dalabnay waxaan oga wacnay maraykanka balse isaga caafimaadkiisa kama fikireen mar walba wuxuu ka fikiraya deef wuxuu raba deef inuu isbedelo mar walba ugula hadli jire wuxuu ku lahaa deef isbedel samee xataa cunugiisa wuxuu ka jeclaa deef wuuna kaga kalsoonaa runtii walaal deef run ahaantaani adiga aabbu wuxuu jeclaa mar weliba inaan isku dabeecad naqano laakiin haddii aan isku dabeecad naqan weyne aniga taas khalad miyaan ku leeyahane mideeda kale aabbu mar weliba wuxuu jeclay adiga inaan naqato qof fiican siyaasaddani aad dib ugu soo laabato sida walaal barnaadoo kale barnaad hadda waa ujeedaa waa nin wanaagsan barnaad isaga xataa wuxuu ka mid ahaa dadka siyaasadda ku jira balse ma jecleen si daacadnima inuu u shaqeeyo mar walbana waxbuu iska daba wareejin jireen horta waxaa ogaataa aabbahaaga inuu ahaa oday wanaagsan adigana waxaa lagaa rabaa aabbahaaga oo kale inaad naqatid marwasajita
ها واي كان حاضر أنا هاني wiilkayga adii halkee u socotaan ما يأذان كراع عنه waayahay هو شو محكي سوى دانا سكذا سكذا وما سنتين أنا لا hadda ay meesha ka soo baxeen horay ayay inoo socdaan annagana waynu dabagalaynaa waxba ha welwelin okay warkayga waad fahantaan filaa war marwe sujita 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 amar ajene marwe sujita marwe sujita marwe sujita sujita oo kaliya ayaan rabnaa مروة سجيتا مروة سجيتا بايدي مروة سجيتا hadalkayga si fiican u dhegayso waxaan rabaa meeshaas qalalaasii buuq inaad ka abuurto mid kalena ogow haddaba aniga waan kuu sheegay ma raba deef inay wax yaroo dhibaato iga soo gaarto hadalkayga soo ma fahmin waa inaad ilaalisaa mararka qaar nolosha waxay ku tusinaysaa adigoo waddo qaldan ku socdo haddana wax sax samaynayo anigana runtii taas kuma qaldanin wax walbana waxaanu sameeyey inaan wax hagaajiyo oo keliya meeshaasna qallaaso ayaa ka dhacay sidaan rabana wax way noqdeen balse waxaa kaloo jirtay maamadaas inay ahayd maamo aad iyo aad u wanaagsan wax fiicanna samaynayso amar yaro aniga aan bixiyey dartiis ayaa qallaaso fara badan loo sameeyey marwadaasna dhaawac ayaa soo gaaray ugu dambayntiina isbitaal ayay u gashay dhibaatadaasoo dhan aniga ayaa ka dambeeyey balse waxaan islaa wax xalli oo keliya iyada uga qalba aniga dartay ay ku dhaceen haddana waan ka xumaa dadka sujaataa mar walba taageeri jira oo garabkeeda taagnaa isla dadkaas ayaa ka soo horjeesta oo dhaawac u geystay xaaladda waa isbedeshay adigana meeshaan danka uguma jirto dadkan waa inaad la hadasho أني دقيست تدوينة سيفي عنا اللي دقيست نينك مرده ودورشده وشرحان أيها اللي خطبات دون يستقى دقيستا واحد متن لقى صوتورة سنة حالكو إليسان كما إليسان صوتورة لكن حسابتك كنت هالكن أنيقا أبا إذا كنت نجري وأنا كنت لنيا توري ذا جوجيننا صوضة maalintaas deef isbeddel fara badan ayaa ka muuqday wuxuuna u hadlayay sida aabbihiis oo kale shacabka ayuu la hadlayay wuu dhiirigelinayay wuxuu lahaa dhulkiina idinkaa iska leh walaal dhulkaan idinkaa iska leh wax badanna dagaallo iyo burbur fara badan ayaad soo marteen maanta waxaan rabaa heer sare inaan gaarsiiyo dadkan waxay rabaan dhulkiina inay la wareegaan waxaan diyaar u ahaa dadka ku tumanaya xaqiinna inaan ka hor istaaga anigoo soo dhiciyo xaqiinna haddii aan ku dhinto anigoo xaqiina u dagaalamaya taasi diyaar ayaan u ahaa inta kale noolanaysa ayaa ka badan waxaana diyaar u ahaa dadkayga iyo dalkaygaba inaan u dhinto hanaanaada ballankaasna anigaa idinka qaaday la socda hanaanaada 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 wareed hanaada deef dadka markuu dhiirigeliye kadib wuxuu ka mid noqday siyaasiyiinta gobolka wuxuuna rabay in la doorto wuxuuna u sheegay inuu u buuxinayo booska aabbihiis maxaa la fikiraysaa halku soo keema maxaa dhacay keligaha walwalsani wejigaadana ilama fiicna war adiga maxaa ku soo celiyay ii sheeg bal khamrigiina waad iska dhaafta ayaan maqlay run miyaa midaas qofka hadduu go'aan ku gaaro waxyaaba xunna uu iska dhaafo wuu iska dhaafaya anigana khamriga waan iska dhaafay haddeeba sidaas taa walaalo anigana waxaan kaa codsanaa inaad iska dhaaftid adiga saan kuu dhaafaa qalbigaygaa tahay khamriga waxaan u dhaafa waa adiga dartaa intay u socotaa kaalay dhegaysano aan wada sheekaysano baaruu yaaqay xanaaqan iyo dabeecad xumadan iska dhaaf saaxiibkayga horta hal tal iigaho ad maskaxdaada ongolofaatay naqatay gabartaada booskaaga ku wareeji gabadheeda hay saaxiibkayga hadalkiisa waad maqlaysaa adiga jawaab marka
gabadheeda dhagaha maa laadahay adeerkaaga hadalkiisa ma maqlaysid miya deef waan ku salaamay run ahaantii aniga waan kugu hambalyeynaya waxaana kuugu hambalyeynayaa maadaama aad isbedeshay horumarka aad gaartayna waan ku faraxsanahay teeda kale lacagihii adiga aad lahayd xoogaa arrimo ayaan ku xalxaliyey deemihii lagugu lahaana waan kaa bixiyey kasta hartayna maasanid meel ayaan koo dhigay caawa labiskaa wadatay iyo codkaada intaba way isleeyihiin waa shidan tahay anaa ku dhahay runtaa miya waa mahadsan tahay wiilkaygii maadaama aad kursigan ku fadhiisatay ma haysaa doonta inaad wax ka yeesho meesha haddii aad fadhiisatay waxaa loo baahan yahay inaad caqli isticmaasho sababtoo ah meeshaan caqli ayaa lagu joogaa oo ninkii martida ahaa yimid waxaanaad ku dhaqaaqaysa makula qurxoon yihin waayahay maxaan sameeyaa adiga la ii sheeg taladeeda haddaad qaadanayso waxaa ila qurux badan waxyaabaan inaad faraha ka qaaddo oo iska dhaafto ma shaqadan iska dhaafaa maxaan kaloo sameeyaa ii sheeg isceli mise laabtaada ayaan soo galaa muddo kadib jaanis aan kugula sheekaysto ayaad disiisay waan ku qanacsanahay waxaan kaa rabaa markaad tuulada tagto kadib dadka inaad adiga la hadashid oo aad soo dhowaysatid markaas kadib adiga garabkaagagay ahaanayaan wax walboo loo sheegan kaama tagaayaan anigana waxaan rabaa inaad guulaysatid isku day inaad wax walba sidaan raba ka dhigtid markaas kadib adiga waad guulaysanaysaa anigana wax walba waxaan u sameynaya horumarkaaga waan ku faraxsanahay mar walbana garabkaaga ayaan dhowaan waa baybaxaysaa halo hadeef oo taleefka maxay ka qaban weysa waan mashquulsanaa ka gudub tuulada nagu dheggan ayaa waxaa looga baahan yahay gurmud waxaana kaaga baahana adiga inaad sida ugu dhaqsiyaabada ku tagtid ii dhaaftaas ii dhaaf oo keliya ayaad leedahay saas taani meesha aan kuu dirin ma tegaysid shaqada markaa dhammeeya kadib anigaa aada igu hadlaya halo soo hadlo deef maxaa dhacay guriga kuma soo laabanaysa ma imaanaya tuulo meeshaana wax iiga qabyaan deef adiga ma waalatay tuuladaas waa halis nafsadaadana baxar ayay ku geli kartaa ciidanka ugu filanna ma haysid go'aankaas alxasil waan gaaray iska dhaaf adig محاوس ودنا بابون من وطن قلنا تسوى وضاكن محاوي كمان ونسمي wiilkaas mayan inaad tuulada sugrid nafsadiisa ayaa halis aniga wax qaldan ma samaynayo wixii loogu talagalay ayaan samaynayaa wiilkaygana hawshaan u diray ayuu qabanayaa muxuu wax qabtaanay kaas wuxuu qaban lahaa ayuubuu ku dheelayaa shaqana ma qabanayo wiilkaas haddaana wiilkaasi qaban wax badan ayuu halaynayaa wax badan ma halaynaayo adiga ayay kula tahay inuu wax badan halaynaayo laakiin wax buu toosinayaa waxa keliya uu u baahan yahay waxay tahay in la dhiirigeliyo dhiirigelin hadduu helo wax walba wuu hagaajinaa wiilkayga waana wiil fiican hawshii loogu talagalay ayuu ka soo baxayaa
ورسيد دوري واحد يكاد قيمة سوا ninkaas hadduu dhib ii geysta ka dhibaato kuuma geysanayo adiga ha iska hadlin oo keliya anigaa og sababtoo ah hooyadiisa waxay igu tiri wiilkayga waxaan rabaa inuu wiil wanaagsan noqdo balse wuu noqon waayo wiil wanaagsan adiga soo maaha aniga ayaa kuu joogo lagama yaabo intaan aniga noolahay inay dhibaato ku soo gaarto anigaanba oggolaanaynin wax walba ha igu qaadato ma ku gaaraysa dhibaato adiga murugtan faraha badan iska daano sidee murugta isaga dhaafaa ninkaas oo wiyacay jugulay aniga joogay aniga xalinaya wax walba igu hadlay ha walaal meeshaan iskaga tag waan kula hadlaa aniga sababtan uga tagay maxay tahay meesha ka talinaysa ma yaa ka taliya marka meeshaan aniga ayaa ka taliya haye sida adigu wuxuu rabtid inna ku dhacan lagama yaabo qaab sidee uga talisaa meeshaan markii inaad iskaga tagta ayaa habboon haddii kale wax xun ayaa igla kulmaysaa waqtu waa kuu soo bax yaaq lakeen soo bax warna sii daa wasiisi sabit كم الله كسر سبعة ورسيدي سكجة أبو حنون ميا أنا هو كم ريا قرق هذا كذا دين سان له كود بيننا سيجا قادة ميت كيس يا كاي كلام هلا عرّيس أنا لعب سنة أنا قاعد يدين جوج أنا تعرف ستان الله ببهنا أنت عيدك كيما نيان أنا قاعد كان جوج دي بصون نقطة كلام ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا ورمضنا هنا أنا سنتي ورمضنا هنا وما سنتي ورمضنا مع هذا بس هل كان كويك ورمضنا هنا هل كان كويك هذا ورمضنا مع هذا ورمضنا بس مركز هل كان كويك هذا قدها كلامي warheed aniga marka hore inaad cabsantahay ayaan kuu qori jiray balse hadda caadi ayaa tahay waxyaaban aad samaynaysa maxaad ka wadaa isha adiga noloshaada maariyaad ka samay ku dhihin waana maaraynayaa see waay waan ku dhahay noloshaada maariya balse kuma dhin laba askari inta wadatay meeshaas halista tag haddii wax ku soo gaari lahayn ka waran maxaad samayn lahayd kabtan waa ku sanaa waan kaa qaaday baryahan dawaalis waay sooma marka sidaas darteed waan kuu dhoobnaa kaaba waxaan maxaa may hadiyadan adigan kuugu talagalayno baash waaya macmacaankii waa maasanta inaad soo dhibto mahin balse waa kaa qaadanaya ise waa shanqara maqle ayeeye maa jiifto ayeeye ka yar waay soo dhaaf see waay soo fiiri haa soo gal axishoone wata ma fiiri wata waa gambuhaysa waa lagaa qaada walaalka waa ku salaama wuu ku dhihin haddale ma wahay si caajisay u dhawdaya aha laakiin ma ogeen iyada meesha inay joogto sooma haddii aan ogaa lahaa ma dhib male iyadaba u soo dhiibi lahayno aawi asxaabti kale inta dhiman alaabta u soo xareeya xaggu saar xagga miiska iskana baxaya iskana baxaro baliskeedu waa malayna meesha hore u socdo ma sinta sii baxnay hay nabaday isoo baxay fiiri ayay ka yar meesha ma joogta ayay karta sheegaysa wadiyarta sababtoo xaaskayga mustaqbalka noqonta inaan dhahno ku qasbanaysa waa inaan ku sarxa waay sidee ku ogaatay marka xaaskaaga mustaqbalka aniga inaan noqonayo yaase ku cadeeyey inaan ogaadan u baahanahay ii sheeg bal yaa diidan waan ku tusaa halkan ayaa cadaynaysa inaan noqonayso iskala ku cadaadina وردفكاينا وردفكاينا هقوليستو 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 aniga diyaar ayaan waa inaan marwadaada noqdo balse marka hore adiga waa inaa hadalkayga aad qaadataa mana rabo qallaaso dambe inaad samayso وزيركنا وصباحي ما دام وزير كاسمالي وعلى ذيك الرباع ذيك إن سود وسيك بوخد الناس كدفتي وزير كات هرتين استغي على سود ويو
wasiirkeenna ha guulaysamaan aan leenahay wasiir waad ku mahadsan tahay maadaama aad noo timid deefna wuu ku farxayaa markuu adiga ku arko waa ka deef arrin wanaagsan baad samaysay waana kaaga mahad celinaa wiilkayga saasaa laga rabaa waan ku salaamay hay soo dhawaada beerka lagu dhufayli lacagteeda ka baqin arooska qaban qaabe qaada ugu yar baan kule iyo alaabta guriga looga baahan yahay oo dhan kumbad anigaa kaa soo dhigay soo dhawow hay waa dhawa hay hore u soo socda soo dhaqaaji wiilkayga ma ahan adiga gabar aad yaraantaada istaqaaneen inaad guursato ha ii qaban adeer ha ii qaban ma soconayso maadaama aad go'aansatay gabadhaa inaad guursato waa inaad u sabartaa waana ku khasban tahay 70 ku kaftamay qaladkan waan gale aniga waalidkaada ayaan ahay waa runta beenta maaha laakiin soo qaladka ma qiran qaladkaada inaad qirato waxba nooma soo kordhinayo maadaama aad go'aansatay gabadhaa inaad guursato annaga waxaan ku khasbannahay inaan sabarno weliba adiga dartaada xageed u socotaa meelaad aadaysid bisa waa soo hawagedisaa fariiso adeeray maasoma annagana hadiyad ayaan u keennay baaro iga waran sug balan fiiriya hadiyaddu noocay tahay baaro xaaladdeeda aniga kaa aqaaniyo gabadhaasoo dabeecad xunta anaa soo dhammayna iska dhaaf dhibla haddiiad la soco weyse aniga ayaa la soconaya murugta iska daadaya gacantaadiga qad gabadhaas 6 talaa kadib uga degadii kale adoo noolan ku dubahaan ku dhahay maxaa jira saaxiib gacantana caajis waa la baroobaynaye kaale adiga aniga maxaad iga soo horjeesta cadaawad miyaa naga dhexaysa anigii adiga dad saaxiibba ayaan ahayn maxaad ku keentay aniga inaad iga soo horjeesato aniga maba kaa soo horjeesanin bishambar waaniyo bishambar ha ku eer sheeganin bishambar waa nin walaalkee adigana cadaawad ayaad waddaa war aniga saaxiib maxay tahay sidaan u hadlaysid maanta sidaan u hadlaysid looma baahna aniga haddii aad isku daydid inaad cadaawo iga samaysatid waad i baranaysaa abbajoonka aqoon uma lihid hadda waxaan kuu ron nafsaddaada inaad iga badbaadsato haddii kale weji kale ayaad arkaysaa baaba iyo burburka halkaan ka dhacay aniga waxba igama gelin dunida hal gabar oo keliya ayaa ii joogta haddii farxad waayso waxaa igu balana noloshiina inaad farxad waaysaan idinkana cagajugleynta siyaasadda le lagu ogaaya gurigeygana ma iigu keentay saaxiib sidee kaa noqotay adiga farxad aan ku cabno farxad aan ku cabno aniga waxaan idinkuugu wac arrimahan inaan ka wada hadalno qof walbana xaqiisa wuu helaya waxaa loo baahan yaha keliya inaad isdejisaan dhulkiinana waad helaysaan keliya deganaan muujiya waxaa hagaajinaha leedahay dhulkeena adigaa u dhacay maxaa hagaajinaysaa war maxaa ku hadlaysa amsurya war neefsada nafaa leedihiin neefsada kula hadlaysa adigana waa ka dhex qaylinaysaa soomaa lagaa dhex qayliya aamusa u fiirsaha saaxiib dadkan sharaf iyo ciise markii loo yeelo ayagana cirka ayay issii geynayaan war dhul iyo waxaan loo joogin ayay ka hadlaayaan anigana waxaan rabaa inaan ka dhiga dad qiimo leh laakiin waxay og yihiin ma laha mana istaahilaan in la qiimeeyo dunida farxadda iigu weyn waa inay gabadheeda farxad heshaa maalintay ayada farxad wayso dunidoo dhan farxad way ka dhammaanaysaa aniga waxaan rabay deef shirkadiisa inaan soo xiro laakiin isaga mar walba baaro ayuu daba cararayay iyadana waxay rabtay labadooda jaayid boor inay isla aadaan anigana sidaas ayaan uga faa'iidaystay wax walbana sidaan rabay ayaan ka dhigay runaantii aniga ninkan deefal lahayo uma oggolaanin tuuladeena inuu soo galo maxaa yeelay khiyaanoola waay wuxuu rabaa sidii aabbihiis uu noo dhacay oo kale asigana inuu noo dhaco anagana midaas ma ahan midaan u dulqaadanayno annaga dhulkeenna waan u dagaalamaynaa waana u dhimanaynaa mana laga yaabo ninkaas inuu meeshan ka taliya mise uu maamulo meeshan keliya waxaa maamulayo nin wanaagsan annaga dhammaanteen waxaan go'aansanay inuu na maamulo nin dhulkeenna u dhashay ma ahan nin dibadda ka yimaada oo shisheeya inuu anaga noo taliy middaasna ma ahan midaan u dulqaadanayno waxaan ka xignaa dhimasho waan dhimanaynaa laakiinse nin dibadda ka yimaada nooma talinayo
hawshaan ma rabo inay waqti kale sii qaadato sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad ku soo afjartaa adiga ayaan kuu xil saaray mudan adiga waxba ha ka baqin hawl marba haddii aan aniga gacanta ku dhiga hawshaasi waa hawl soo dhammaystirantay waxba ha baqin marka adiga isdeji anigoo keliya iigu ogow ma waalatay maxaad samaysay anaga ma waalan laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dadka magaalada dhan waa la dhameeyay waa la lahay wax loo rabtay ma lahan dadkaasi maxaan samaynaa marka maalintaas dhibaato ayaa dhacday dadka masaakiinta ahaa waa la baabi'iyey wax walbana sidaas ayay ku qasmeen cid wax ka qabatana ma jirin dadkoo dhanna way qeelinayaan waxay dhaheen garab hana la siiyo bax orod duumo ilaa aan ka soo laabo ku dhahane ma ii soo laaban karti haddaba waa inaad isqarisaa okay waa marka ugu horeysa dhibaato noocan aan la kulanno waayahay tala keen adiga maxaan samaynaa hadda aba maxaan samaynaa maxay tahay wax loo baahan inaan wax samayno waad u jeedaa xaaladda aan ku sugannahay isdeji adiga aba maxaan isdejiyaa ii sheeg gabadheydii hadalkayga si fiican u dhegayso hadalkan hadda annaga ayuu nagu egyahay mar haddii uu dibadda gaaro si aan ku xallinna ma laha walwalka iska daa jaandani aniga waxaan aan samaynayo oo dhan adiga dartaa ayaan u samaynayaa waxaan aniga haayoo dhan adiga ayaan ku haayaa adiga oo keliya ayaa iska leh aniga ma aqaana habeenkaas sababtaan u fikiraay balse muhiimaddeedu waxay ahayd deef inaan badbaadiyo oo keliya wax walbana isaga dartiis ayaan u samaynayay waxaan rabaa deef inaad badbaadisid sababtoo ah dhibaato fara badan ayuu ku jiraa qofka keliya oo badbaadin karana waa adiga ii badbaadi waa ku baryaaya deef aniga muhiim ayuu ii yahay run ahaantii dhibaatada deef uu geystay mid laga badbaadin kara maaha balse haddaa ugu tala gasho waa badbaadin kartaa shaqeysa waxaa suurtagala wax walba aad u baahatid inaan diyaar kaaga dhigo adigu sidaan keliya lagaa helo deef maana kumanaan deef annaga kuu saarayn deef waad ii badbaadisay wax walbo aniga aan sameeyeen isaga dartiis ayaanu sameeyey iyo si uu igu badbaado waan mar labaad u hanti waana ku faraxsanahay runti sidaad warkaba ku maqlaysaan qofkani waxaa lagu eedeeyey in gurigiisa lacag fara badan laga helay waa in arrinkan wax laga qabtaa sidaad arkaysaan shacab fara badan ayaa aad ugu qeynaya ninka gurigii laga helay lacagtaasi waxa ay tahay iyo annaga ayaan idiin soo gudbinayn wixii akhbaara oo arrinkaa ka soo ukaadii wax naga sheeg tuuladu waan ka soo fogaan matalaad intaasna way ekeeyey soo kac adig maxaa kugu dhac maxaa la jiiftaa
naxeed xageed u iga wareeg naga joog अंदर जाने का परमिशन नहीं है देखिए नवाजुद्दीन से कोई नहीं मिल सकता मेरी बात सुनिए war soo yara dhaqaaq adigu aabe aawo dhibkan oo dhan adigaana geliyey hadda ninkan haddii uu af kala furo annagoo dhan baxar ayaan ku jirnaa waa in tallaabo aad qaaddaa ma aragtaa dhulkan weyn aad arkaysa inta ilaa iyo inta aniga ayaa iska leh aniga waxaan rabaa dhulkan aad aragtay inaan adiga ku siiyo laakiin adiga maxaad samaysay maxaad ii khiyaantay aniga khiyaanada aad samaysay maxay tahay xayawaan ayaad tahay waryaada iga noqdaan ku dhahay waa shansi dadkaanoo dhan aniga waxaan isku dayay inaan xaliyo adigana maxaa samaysay dadkii o dhan xabsi ayaad ku arorisay maxaa kugu kalifay taas inaad samayso wixii dhacay waa dhaceen adiga ha u bixin aniga waddo kale ma haysanin waan ku qasbanahay inaan sidaan sameeyo laakiin adiga hal mid samee deganaan oo keliya iigu kaalmay haddii aad adiga iswaashid oo anigana aan iswaalo wax noo hagaagaya ma laha mar walba waxaa roon aniga adiga inaan isfahanno isfahankana waa shay qaali ah adiga hadda xaggee u cararaysaa waan kula hadlayaa hadalkayga si fiican u dhegayso adiga ma waxaad mooddaa aniga hantidaydoo dhan inaan deef siiyo deef oo keliya ma siinin adigana hantidan waxbaad ku leedahay adiga marka walwalka iska daa abajoonka haddii ay wax soo gaaraan aniga maxaa ii dambayn doona waxba ha ka walwalin ninna marawo mu eka ninkaan baaru adeer xaaladiisa waa halis isbitaalku yaalla annagoo la sii socda hadda saasay dhihin isbitaalkan dhex jooga adeer kamuu ku jira waa inaan fiira waa ku qasbanaya baaru see u hadlaysa adiga waaya in adeer arrintan wax ka qabo adigoo keliya ayaa wax ka qaban kara deef anaga waxba kama qaban karna arrinkan si ninka la dhahay wuxuu yidhi dadka siyaasadda ku jiro hadday arrinkan ka hari waayaan nafsadooda ayaa khatar ku jirto haddaba waa inay is ogaadaan digniintaas ayaa la bixiyay adiga ma la wax qalada miyaan sameeya aniga marka adiga ma la socotaa sidaadaba waxaa lagu diray inaad wax soo xaliso laakiin maxaad u xalisaa waxbaad qaribtay mudana siin dhibkan sidoo ku dhacay war hadalkayga si fiican u dhegayso dhibkan oo dhan wuxuu dhacay markii siin la xiray arrinkan waa inaan wax ka qabanna haddii aan wax ka qaban wayna khatar ayaan ku jirnaa waa hagaag ninkaas waa keligiis waxaa loo baahan yahay arrimihiisoo dhan ina aad la socotid arrin aad u foolxun oo shalay dhacday ayaa waxay dhalisay buuq fara badan waayo meeshaasi waxaa ku baaba'een dad fara badan dadkaasina ilaa iyo hadda cid dishi lama hayo booliiskana baaris ayay hayaan balse waxaa la sugayaa jawaabta ay booliiska ka soo saaraan iyo inay gacanta ku soo dhigaan dadka dembigaasi ka dambeeyey iyo waxay ahaayeen iyo meesha ay ka soo waxaad samayseen wax wanaagsan maysan hayn tilaabadan qaldan maxaad u qaadeen tan kale arrintan adeer sababta loogu sheegay maxay ahayd yaase idiin dirsid adig cabitaan miyaa cabaysaa haa xoogaa madaxa ee wareersan waa liigu kiciisasan cabitaanku isticmaalaya hooyada waa xanuunsantaha aabbaheen xabsi ayuu ku jiraa saasitaana wax kurbaa kuma heesa adiga ya
eedda aawe meel ma ku sheegtaane adeerkaas aawe familkii oo dhan aawe ii sheeg bal waxaad ugu tirahdeen adeer wuu xanuunsan yahay hadduu xanuunsan yahay xanuunka miyaan ka qaadi karaa aniga waa maya ma adeerka inta maskaxdiisa aan degaan lay adeer soo kaca ma soo kicin karo wax kaloo samaynayaa jira wax kale oo siyaadaha keena bal oo ku soo kici karo duqaas anigu ma kicin kara maxaa dhacay waa xanuunsan yahay waxaan u qaban karaa abayatee ma jirta marka aniga buuqiina way igu batay ninkaygana aniga ayaa soo badbaadsan garbaan iga baahan habi yaraatay hooy istaag intee u socotaan laabanaya dhaa kaale fariiso isdeji deef adeerkaa wuu xanuunsan waa la gartay balse aabbee ciqaabta muxuu u marayaa ii sheeg anigu aabbaha dhibaato ma aanan gelin dembiga isagaa afkiisa ka qirtay aqay maadaama dembiga uu qirta aabbaha waxbuu iska ogyahay waxbaa jiro sidee ku awoodda deef inaad aniga sidaan ila hadasho aabbeene aad u naxariiso weyso war ma ogido aabbee inuu yahay qofkii adiga ku soo koriyey intaasu sanna ku soo xanaanaynay maxay tahay marka sidaad u hadlaysid beeru qalad iga aaminsantahay laakiin waxaan sameeya ma aqaan adiga hadda ka hor cagta ii saaray oo waxaad igu tiri siyaasadda waa inaad ka qayb gashaa waqti walba waxaadna igu tiri dabeecadahaada beddel waan beddelay siyaasadda sideedaba waa sidan way ila gadoontay beeru maxaan sameeyaa adeer intuu ka caafimaada waa inaad jawaab iga sugtaa adiga booskeeda haddaa ku jir leed ma sugaleed middaas ayaan ku weydiinaa jawaabee maxaad aamusan tahay farqiga inoo dhexeeyaaba intaasa aabbaa booska uu taagan yahay aniga hadduu aabbahay taagnaa laha waxyaabaha fashaxan kuma uusan dhaqaaqin mar raba uu ka xishoolaawa hadalka aad maanta tiri maankaaga ku haysa ayaan ku dhahay baaru dhegeyso baaru ha carari yaaqay dhegeyso baaru madax adeegan jooji xaggeed u socotaa maxaad u baahan tahay Hello Maru Jandarmuki. Baro meeshana imaadaan ku dhahay akhbaartaasa ku haya. horta jahwareerkan iyo isku joogsagan aa ujeedid barmaan ninka la dhahayaa ka dambeeya taasna anaa ku hay adna meel kale inaa ka raadisid maba loo baahnaba khaskan aa ujeedinda oo silee wadaaba laakiin sidee siyaasi way siyaasin wax walba ka filo sidee maba soo geli karto sooma wax walba meeshaas ka dhaxay ninkaas ayaa ka dambeeyey dhibaatada meesha ka dhacdina isla asigaabaa dusha ka saaray markaa u qaban adiga laakiin gabarteeda murugta iska dhaaf an intii jooga adooga wax ma kaalaaway anaa soo badbaadina arrintaana anaa xalinay way kastaan umalaynaa sababtoo adoogaa saniima ninaan saaxiibeen laakiin sabab mataala yaqay ninkaas anaa hubo laakiin waxyaabaan ama been yihiin beenta lab lagu baab maraa moogidoo yaqay beryaan been la shaqeyna eesha calaa hees wax walboo dhacay aniga dartay ayay ku dhaceen qallaaso fara badan ayaana abuuray taas waxaa sii dheer aniga waxa walba waxaanu samaynaa waxay ahayn deef si aan u badbaadiyo balse waxaa dhacday ninka anigaan isdhahay garab ayuu ku siinayaa ayaa rufyaan u noqday barmaad taasoo anigana dabarjab igu noqotay isma leen wax walba sidaanay isku beddelayaan balse khiyaanada ninkaasoo qiyaamo ayaa wax walba igaga ciyaartay nagaraal naqmarbo aabbahaaga wuu uu geeriyooday runtiina wadnaha ayaa istaagay saas darteed ayuu u dhintay
ninkan dhaawacaya masaakiinka haddii isbitaal aad uga adinaceedeen xilligan muusan geeriyoodin balse geeridiisa adinka ayaa ka dambeeyaan dhihi karaa sababtoo waad iska daawanayseen maxaad u daawanayseen maxay tahay waxuusnimadan iyo waxaad ku dhaqmaysaan aamus afkaada hayay kala furin waad qaldantiin dhammaantiin wax walba waa inaad ka fiirsataan baaru raalli hawya aniga kuu joogo waxbaa ka welwelin okay baaru niidad qarso baaru laakiin aawe marwada dalada u soo diyaari dhaqsada idinka maxaa sugaysaa waraa soo qaada meydka ila qaad hadda qabo maxaa sugaysaan ordaha gaariga saara roobka lixiyaa cabitaanka dhankeeda kacab sidoo kale anigane ha iga reemaya waad ujeedaa dhaladeeda gacantaan ku wataa baaro aabbeedaa ku soo korsaday soo maha adiga waxdina waa u qabowysa odagoo dhibaataysa labadiinaba caawa dhaladana u soo wada dhammaanay baaro goordho labadiinaba ninaa naga qaadan doono anigii adigane waxaana daarmi doonta tu noloshii laylen baaruwa way naga fogaatay soo maa oo meel fogaya naga aaday sheekada waxay ku soo dhammaatay ceynkan aniga adiba inaan u wada ciidno iscelihe ceynka isku dhammaatay soo baaru raalli noqo noloshaadana maanta wixii ka dambeeya xor baad u tahay ninkaad doonto waad guursan kartaa kuguma dhegin waan ku fasaxay biniya weliba naga wada meeshaan soo socda war maxaa naga joojiye muusiga naga joojiye anagaa dhaawacan muusigaa noogu sii daraysaan qodax maa noogu dhigaysaan baaru maxaad samaynaysaa maxay tahay dhibaatadaad ku dhaqaaqayso gaf yaran kuu geystay miyaa labadeena nafsadeenna u ciqaabaysaa looma baahna taas inaad ku dhaqaaqdo
waxaan kuu soo go'aamin lahaa nafsadaada inaad maarayso ninkanaad guursato yaa anigaan ku guursan laakiin ninkaasa guursan afkaaga iga xir maxaad u xiraysaa afkayga maxaa yeele waan ku jeclahay xaqiiq may ka tahay taas haa waa iga dhab mana raba hadal kulul inaad igula hadashid qalad yaroo adiga aad gashay ayaan aniga nolosheeda qof kale u qorsheeyey adigu waad la socotay ninkaas dembigaasoo dhan inuu lahaa saasi tahan aabey ayaa dusha laga saaray maxaad tilaabo uga qaadi weyse ii sheeg maxaa dhacay arrinkan beenta ayaa kaa dhaadhiciyey mala socota aabbaha dembiga inuu isaga dusha iska saaray cidna dembi kumaysan ogin aabbaha kelmadahan afkaada ka soo baxay qalbigayga dhaawacayn mar damba haygu dhihin aamus qalad hay ii fahmayaa bannaanka u bax waan joogayaa waxaan ku dhaha wejigaaga iga qari ii kale naga dhaafee deef adiga inaa walowsho looma baahna gabadhaasna tilaabo qaldan ayay qaaday ma qaldaneen gabadhaas wax walbay ku dhaqaaqday way ku saxneed sababtoo ah gabadhaas niyadda anigaa ka dilay waayo aabbaheed ayaa ka geeriyooday halkii aan garab ka sii lahana waa daayacay ma aqaan hadda waxaan sameeyey deef waan ku baryaa isdeji adiga aniga may iga fogow deef aniga xaaladdan kuguma sii dayn karo adiga meeshaan waxaad u imaaday deef adiga meeshaan waxaa u imaaday aabbaha booskiisa si aad u buuxisid waa ku baryaa iska dhaaf gabadhaas fikirkeeda maya ma samayn kartaas waxaan day haddana deef baaruu xilli waa jirta gabadhaasaan ka fogan kare laakiin hadda kama fogan karo deef baaruu jeceelkeeda ayaa ku xeedada dhiiggaygo dhan ayay ku shaqaysaa gabadhaas haddana farahana wuuba ka baxay deef maalintaas kadib wuu ka sii daraayay maalinba maalinta ka dambaysana qalad ayuu samaynayay booskiisa hore ayuu dib ugu laabtay soo dhawo deef xabadda joojiya xafladdan ku kala tagaa tii kale kulligiin saanlo ayaan idinka dhigaa dhasada ka dhaqaaqa meeshan deef warsaa aw dhiigankooda dhiga meesha deef waa ku baryaa deef u kaadi war u kaadi horteeda ka leex war xabadaan ugu soo tuurin deef naa iga fogow iga horneexa dhaqsan tabada iga qabriya soo hadal barbanaad aabe tuuladayna waa adeeyaa la sheegay tuuladow aadamiya alloora hadday sidaas tahay aniga waaba iska nasanaabo hantidaanoo dhanna waxaan rabaa gacantayda inay soo gasho waxaan ku warsaa arrimaha barmaad deef maxma uu sheegi mayno waxba ugama sheegin sababtoo aninkaas waxba kama quseeyaan arrimahaas maxay taa marka sababta aan ugu sheegayo iyo waxa naga dhexeeyo aan arrimahaas dhan ugu sheegayo maxay taa eesh calaa gabar qalbiga iyo khawaaji si aan ku dhahay saa camal markay suubinaysid runtii aadaan u jeclahay waayo ani dadka waan jeclahay dadka kale si degan wax uga dhaadhicay adna tii oo kala suubisay arrintaanna waxaan u malaynaa arrin khaasa inay tahay macnaha meel kale loo gudbinaynin lamadeenna way kaanayso waa saxan tahay aniga ayay qaasii tahay
kaale cawada wasaaradii hurdada ma dhinacaa jirta ya akhay hurdada dhan waa iga haadibe say wax u jiraa ya akhay hurda ma helooye ma sheegi kara taas balse aniga cabsi fara badan ayaan dareemaya mana aqaana sababtaan u dareemayo adiga maxaa kugu dhac badarka tunna hawshan qabo ani kaliya miyaa qabanayni maya waa kula qabanayo sugaad maxaa u qaylinaysaa aamusa shabiga dhaas sidee wax idinka ii waryaa naga aamusi kuwaan in mudan idhegeyso aniga mid ayaan la yaabanay ninka saaxiibka abajoon ah ma ba xanuunsanay sababtuu isbitaalka u joogo maxay tahay ii sheeg bay aniga waan fahmi lahay wax caddeena ma heshay walaalka u kaadi horta waxaanoo dhan barmanaadaa ka dambeeya barmanaad in iska dambeyn anaaba kuu caddeehayaan ku dheh ani miyuu kalsoonido arrintaasay ka ogaatay ee anigu tuuladaan deganay maho tuulada wax walboo ka dhacay anigu waa la socdaa barmanaad meesha lama qof iska gadi lamadii qof wax dhan walaaqooyinaan ku dheh waxaasna anaa kuu caddeyn karaa wax walba oo iga baahdi anaa diyaar kule waa hubta Soomaalikan arrintaas anaa si fiican kaagu hubasay wixii kiina adag ku raacnaa anaa mas-uuliyadeeda iskale walaalka igu kalsoonaa egarke arrintan horta waa dhaceen si wadaacdan ina iska dhaaftida ku wado markan waxaan kuu sheegaa adiga maxaa suu badabtaa ii sheegbo maxaa dantaada macnaa maxaa qaban kartaa adeer waxaan rabaa aniga baanu aabaheed shakhsiga dilay iyo weliba barmanaad dadka u shaqeeya inaan ogaado walaalka dadka degmada ka tirsan aha u malaynaya barmanaad dadkiisa waay familkiisoo dhan waay barmanaad aami barnaad ma joogo mudan ninka kor basaad dhinacyadaas laga baaro adinkuna dhinacyadaas laga baaro ninka abajoonka barminaadaa ku soo wucuya ma rabo inaan qabto faraha ka qaataa iska dhacee يا أنا بليس وعيا ميا وكذا يعني هيدف نينك بريان بانقديس أي بديسو dad ay qortobsatan ay raadinayso waa adiga Soomaan aniga neera raadsanaysa igu iimow fadhigayga fadhiiso hooyo waxaan ka rabaa ninkan inaad u sheegto aabihiisa cid dishay iyaarkayga adoogaa cid kale ma dilin waxaa dilay eebowgiiska weyn wax walbana usugaa ka dambeeya ninkaas magow dhimayna saasuu dhahay anuka xabad kale kama ogin adoogaa waa la dila adeerka ahaana dilo sidee laakiin suuragal maaha arrintaas ma anfici karto aw asaga way anfacday arrintaas aabbahaaga adeerkaaga ayaa dilay waxa uu dilin cid walba way og tahay hooyaday hadalkeedana waa run waa beentaa taas waxaad doonaysaa naftaada inaad ku badbaadiso laakiin kaama yeelaya bannaanka u soo bax hadalkayga lama gambanayo soo soco
war aniga doqon noocaaga oo kale maahi oo been loo soo sheegay aabbihiisana la dilaya waryaa aabbaaga adeerkaaga ayaa dilay sababta u dilin cid walba oo egtahay wax kalena maahan kursi ayaa aabbaaga loo dilay doqon iyo been baa lagu sheegay adeerkaaga adiga ayuu ku doqonsaday caqligaaga yarowna ka faa'iidaystay wax walba uu rabana uu kaa samaystay orod adeerkaaga u tag weydii aniga igu soo qaylinin caqligaad ka xaaran tahay eberaa tahay waryaa aabbaagana wax kale looma dilin waayo adeerkaaga siyaasadiis ayuu faraha la soo galay isdaji wiilkayga anigana arrintayda haddii la soo galo ballan waa ciidan dhaafaayo mal adiga xitaa waan ku jarjaraya midaas maanka ku hay ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है मंजिल यही है यही कारवां है जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है सर पर उठाया है क्यों आसमां को अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने halo haa baaru waxaan rabaa inaan labadeena wada kulanno suuragal ma tahay mayay imaanaysaa mase waan ku imaadaa ii kala sheeg labadeeda anigaa ku imaanaya ايش شحشحنا معاه ما شيء نقضي صاحب جري شكله محاوي deef xaggiisa ayaanu socdaa يا taleefon ayuu iga soo wacay دمبخ دوا xilligan ma rabtaa deef inaa u tagtid sawa ya akhay khalad ma inuu xilligan aniga haddaana xaggiisa aadin asaga ayaa halkaan imaanaya saas miya adiga waxbaa ka walwalin arrintaa mar kale ma soo laabanayso aku soo daahinge adiga adeerkaa ma la hadasheeda adeerkee war qofkaas adeeraa ku tilmaamin ma adeerkayga aniga aabbahay dila anigana uqdada igu beeray adeer ha dhihin ninkaas waa abayso adiga ma waxaad ku fikiraysaa magaalada inaa ka dheeraato haaya miyad raacaysa adigu ma faraxsan tahay su'aal khaldan aa weydiinaysaa ma la hubaa taas su'aashaad inay khaldanta ila noqotay maxsalaamadaduna sidaan baa ii sheeg maxsalaamada waa kaa dhuusanta anigaa ku soo xasuusinaya deef meelaad aadaysa ma lahan halkan ayaad joogaysaa waana dagaalamaysaa qofka markuu nool yahu dagaalamaa waxaan dhinta aniga ninka markuu ku guursaday awoodna runtii goodbay deef hadalkaasi waa been aabbahay shir ayuu ku dhintay anigana hore u soo baaray aabbaha adeerkayga ma dilin yaa waxaas kuuga dhaa wiilkayga adiga qof xun ayaa tahay dadka waxay ku soo dhacayaa isku soo raacaysaa wiilkayga adiga maxaa kaa qaldan adeerkayga miyaa lagu xumeynaa yaabaa qofka fikraddan xun ku soo siiye waxaasi waa been waxaa jiranaya dadkan kuu soo sheegeen adeerkayga sidoo u dila aabbaha waa u jeclaa walaalkiis ayuu ahaa markii arrintaas kaa soo dhadhacsiiyey baaru ayaa ii sheegtay baaru lama dhahe qofka shukla ayaa la dhahaa
waana cadowgeen waxaan rabtaa adeerkaaga inay kugu dirto hadalkeeda ha qaadan naagtaas waa naag xun wiilkayga aniga hadalkayga aamin دماشي بارو دماشي دين بارو دماشي دين بارو دماشي دين بارو دماشي بارو دماشي بارو دماشي بارو دماشي دينا عدو كذا دماشي بارو دماشي بارو دماشي دينا دماشي دينا meesha la soo fariisay may tartiib may anaga su'aal weydiinayno u kaadiyo Maro su'aal ayaa ku weydiinaa su'aashiisa iga jawaab may tartiib idinka isdajiye ninka anaga su'aal weydiinayno u kaadi hal su'aal aan weydiiyay adiga xisbigaaga waxaan ka rabaa muddo 20 sano ayuu fadhiyay waxaad u soo laba kaclaysan oo hadda aad dib doorashada ugu galabtaan rabnaa inaan ogaano aniga ku fahamsiinahay taas hadda xisbigeena xoog ayuu soo yeeshtay wuxuuna fahmay doorashada dhanka uu kaga leeyahay maahane si fiican warka noogu faahfaahay ilaa hadda waxba ma aan fahma gabadhi adigu hadal aniga ayaa idin fahansiinaya dhegeysta xisbiyada aad arki jirteen adinka musuq maasuq ay wataan balse ninkan xisbiga uu wato wuxuu ku asaasan yahay siyaasad fadhisa adinka haddii aad taageertaan waxna waa dalkana dhanna wax ka bedelay marka isku day ma soconaysa midaasi waa been xisbiyo badan ayaa sidan oo kale doorashooyin ku galay kadibna meel bay kaga tageen cidlaa dadkii doortay oo u codeeyey oo maalin dhan u taagnaa bannaanka marka waxaan wax soconaya ma fahansanin qalad hadalka laga fiican noo sheeg maya waxaas waxaynu fahmayna maa kamana yeelina xisbiga meeshaas ka fadhina war khaldan leh ma dhaade ilaa hadda kelmad khaldan kuma hadlo war nin khaldan ayaa tahay intuusan ninkan hadalka bannaanka u bixinin maxaad annaga noogu sheegi weyse maxaad noogu qarisay inaad nala socodsiisa ayay ahayd laakiin barmanaad siduu ku ogaaday sidayse ku dhici kartaa ii sheeg arrinkeenni inuu ogaado ma ahayn xisbigeennana wuu ku soo horjeestay xisbi cusub ayuu samaystay idinkana indhaha ayaad ka dayayseen maxaad tihiin horta idinka hawshaan idin diri oo dhan waxaad ka qabateen malaa gabadhayda waxaan kaa rabaa siday wax u dhaceen iyadoo faahfaahsan in aad ii sheegtid aniga ma fahmin waxa meesha ka dhacay aabo aniga waxaan maqlay abajoonka oo dhahaya ragunaad hadalku ku hadlayo wuu qaldan yahay aabo adiga meesha waa taagneede abajoonka hadalladuu dhahaya maxaad wax uga qaban weyseen oo aad uga aamustay ii sheeg in wax ka qabto sooloma aniga waxa keliya oon ogahay abajoonka waxa uu ku hadlayay inay ahayn wax saxan balse aabba aniga su-aashaas kuma weydiin keliya waxaan ku dhax xaqiiqada waxay tahay ii sheeg arrimaan maxaa kaloo koogtiin war heedha wax kale qalabsan waxay tahayna ilaa hadda annaga ma aanan garan siyaasaddan way qasan tahay waa run haddaada joogeen waa inaad iskala qaaqda halkan maxaa weeye siyaasadda hala toosiyo maxay dhacay oo madax maan iskaga istaagaysa macquul maaha suuragalna maaha taas wax walba waa xaq inay ku dhamaadaan waxaan u fahminaa wax qaldan ku hadlaysaan meeshaan joogis malan siyaasaddana waa inaan iskaga baxa aniga xataa waa iskaga daya waa iskaga baxa dee aniguna dhaqaajii hadda eedada maxaa ku soo horjeysanaysaa ma ogid miya inay eedada war sibiga dhakaagiga waraajiya akhay xaggii igeya isdigi waan ku baryaa wax qaldan maana samayn dhegeyso horta wax qaldan ma samaynaya ay dhehaysaa markaas ayaa waalidkaaga maalin marka celcelina aniga waan ku baryaa dhegeyso aniga eedada wax qaldan kumaana samayn wixii ila saxnaa oo keliya ayaan sameeyey ma ku dhegeysanaya aniga hadalkayga maqal waan ku baryaa isdeji horta ma aamusahay mana isdejinaay yaa waryaa afkiina yamyamta boobka badisaan wax ma sheegaysin miya wax fiican ku hadla almiina shabiska dhaano maxaas ku haystiin lamadiina
arrimahaasna inaa ka warantiin akhalladay idinku tahay labadaa qof been ayay sheegayaan labadoodan xididoosaad ayaa ka dhexeey waxaanoo dhan waxay u samaynayaan si xisbigeenna u burburiyaan arrinkaasi dadku ogaata adiga dadkan khiyaano ayay wataan wayba iska cadday inaan weydiisadan ku ogaanada maba loo baahno soo maa dadkan waa ujeedaa waxay rabaan in annagana afgambiyaan siyaasaddoo dhan ay gacantooda ku wareegto balse annaga taas ma oggolaanayno khiyaano ma oggolaan karnaa waa may sideen khiyaano ku oggolaannaa mudan isdeji jabigadha dadkan inaan iska qabanno ayaa loo baahan yahay haddii kale nolosheedoo dhan ayay baabi'inayaan soo ma rabti inaa horumar gaartaan marwo waxaan ku weydiinaa waxyaabaan lagu eedaynaya sax miya mise wax kale ayaa jira hadale maxaad laamusantaa noo jawaab mudana xaggeed u socota adiga sii socday halow ay mudana waa soo baxis diyaari dhammaantiin yaa deef hadalkayga si fiican u dhegayso waxaan anigu ku faray oo keliya ayaad samaynaysaa wax kale ma samayn kartid inay dhigaysa marwo waxyaabaa lagu eedaynaya maxaa ka jiro adiga ninkaas xiriirka idinka dhexey maxay yihiin waxaasoo dhan yaa ogaan ayaa rabnaa sushiila iyo ninkaas hadduu xiriir ka dhexeey iyadana afkeeda ay ka qiratay idinka maxaa idinka gale waxaa laydinka rabaa hooliin inaad raacataan dadkii lagu mashquulo maahan labadaas qof iyagaa is doontay aniga sababtan cafiska u weydiisanaya maxay tahay sababtoo weligeyba qof qalad kama gelin adigana wax qaldan ayaad aniga ugu samaynaysaa aniga qaladka amaana gelinin adiga haddaad aniga iga shikisantahay oo aad isleedahay waxyaabaha dhacaya baanuu ayaa ka dambayso waxaan iloobayaa xiriirkii aniga adiga hore noo soo dhex maray mana laga yaabo ebidkii inaan ku soo xasuusto mana ku cafi doono inta aniga aan noolahay idhigeysu wiilkayga aniga siyaasaddan waxaa ku soo jira 30 sano aniga gacanteeda ayaa adigana kugu soo koriyey aabbaha wax kastoo samaynayna aniga waan ogaa markuu geeriyooda kadibna aniga ayaa garab ku soo siiyey haddana wiilkayga iga raali noqo teleefonkayga ii soo qabo wiilkaygii dhegayso ani wax walba waan kuu sheegay waxaan u baahanaa mar walba hadalkayga inaad ku kalsoonaato aanay soo xasuusata wakhti walba aada maanta gacantaan ugu jirtaan ku dhahay iga badbaadis soo deg يا أخي سوغا يا أخي سوى أنا بصعب السبوع جوكسنا سوى fikirkan yaa keenay aan wax ma ogi xaaskaada maa keentay mise adiga aan wax ma ogi akhay xaaskayga ma ogi anna ma ogi waraa isku dayan aniga inaad iqaaladid aniga dheel ii keentay miyay afgambis maya akhay aan wax ma ogi waryaa ciyaal matida si nin weyn igula hadal aawi xaaskaada iyo ilmahaadii intee geysi aniga dheel ii keentay miya dheel ma jirta ya akhay waxaan asuubinaysa khalad waaye adi wax khaldana haddaba ninkaas waa soo dilaysaa qaabka aad u soo dili lahayd aniga shaqo kuma lihi waxa keliyoon kaa rabaa hawshaan inaad fulisid intaas lee waaye wax kale kaama rabaa aniga soo fuli hawshaan adiga horta qof lagu kalsoonaan kara ma tahay waan ay akhay qof lagu kalsoonaan kara wax walba anaa kuu suubinaya darso maxartaa inaan kuu sameeyo soo hadal ay fiirin ali akhay aniga cabsiinin wixii rabtid marxaba
baaro ayaad soo dilaysaa defna dhibkao dhan ninka uu ka bilaawdo waa asiga xisaabtiisana waa ii dambaynaysaa anigaa aqaana qaabkaan ugu shaqaysanaayo laakiin adiga baaro soo dil teleefanada dhan waa lama heli karo laakiinse maxay ta sababta ay noogu waceen dadkaas si lama filaana weliba maxaa dhacane milan gaariga halkan maxaa u joojisay milan milan halkan maxaad gaariga u baagatay maxaa se damacsan tahay ila hadal adiga soo marab lama filaanka inaad ogaato maxaa rabane lama filaankana wax kale maaha ninkaada wuxuu igu soo amray adiga inaan ku dilmo inaan naftisaan ku dhaafiyo soo saar waxbaa isaad keenine hee milan hee maxay weydii rabtaa maxaa kaa khaldanada ma waalatay waxbane mana laga yaaba inaan khaldamo sababtoo aniga amar qaadso keliyaan ahay waxaana laygu amray adiga inaan ku dilo ilaan adiga sidaad banaan waxaa jeceshaa qofka bini'aadanka inaad ku ciyaarto soo maha ma diidin aniga adiga inaan ku jeclaa weliba aanan ku heli milan biskoolada hoos iga dhig biskoolada hoos u dhig waxba haydhilaan hanay amri adiga muhiimaddeedu waxay tahay inaan ku dilo weliba isla bartaan carar dhaqso maxsig yaa mar walba adiga waxaad caadaysaa aniga inaad aflagaadii soo keliya maxaa sugaysaa marka maanta fursad haystaa icayno icay maxaa sugay ninkii meesha loo badnaayo un dira aniga waxaan ahayn dad gambaniga sheer ku leh iyaaba wax ninkayga dila oo war gambanigeena afgambiye adiga ayaan ku weydiinaa sushila isdeji horta adiga marka hore xaaladdan ayaad ku jirtaa inaad buuq isgelisna looma baahno arrinkaanne kor ugu bax adiga waa ogtahay ninkayga qofka dila iyo waxaan waxa dhan wax sameeye maxaa iga qarinaysaa ma ii sheegtid waayo adiga dadka saaxiibo ayaa la ahayd waana ogtahay qofka ninkayga aniga sidaas u gale iyo qofka aniga afgambiye waxayna iga qarisana looma baahno haba yaraadeen wax la ii sheeg adiga soshila adiga horta isdejiyaan ku dhahay waxaan way dhaceen inaad murug kale issii gelisid looma baahna marka waxaan kor ugu bax waa ku baryaa aniga adaan kuu naxaa waxaynay dhicin aniga waa ogahay laakiin mar walba waxaan rabaa runtiina ogaado adigana qof runtii ii sheegi rabo ma tihid run ahaantii aniga horta kambanigayga si aan u badbaadiyo waxaan ku qasbanaaday waxaasoo dhan lacag darteed miyaa u samaysa adiga middaas ayaan ku weydiinaa aniga abbajoonka iyo ninkaada inaan mid doorto waan ku qasbanaa marka abbajoonka ayaan doortay laakiin arrinkan deef inuu ogaado ma raba aniga waana inaad ka kharisaa adigana kuuma wanaagsano dantaadana ma ahayn
deef ah haa deef ma raba aniga inuu ogaado arrinkan waa inaad ka qarisaa haddii kalene dhib ayaa imaanayo marka waa ku baryaa arrinkan meeshaan ku dami deef wax walba wuu ogyahay yah maxaa ku hadlaysaa adiga aniga deef wax Kembo. walba u sheegay oh gabadhayda aaway meelay aad ma aqaano laakiin mar dhow ayay bannaan ku baxday okay waaya halo aabo gabadhaydii naagtan sojitaa la dhahayo sidee arrimahayga ku ogaatay kambanigana sheer 40% inaan ku leeyahay sidee ku ogaatay arrimahaasoo dhanne yaa ogeysiiyey bal ii sheeg gabadhaydii aniga arrintaasaan rabaa inaan ogaado middeeda kale arrintan aniya adigay sir noo ahayd ahba aniga ma aqaano waxaad ku hadlay sidee u hadlaysaane waayahay goorma imaanaysaa ii sheeg wax yar kadib waan imaanayaa waayahay waan ku sugayaa ha isku day inaad dhaqdhaqaaq samaysid waad ogtahay dhaawac hore inuu kuu soo gaaray ha isku dayin marka inaad baxsato lacagtaadana akoonkaaga ayaan kuugu soo shubayaa kulley waa i wacday balse waxaan kaa rabaa maadaama aan ku imid muhiimadda halkan aad igu yartay ii sheeg maxaa daran aabahee wuu dhintay wuu dhinta ah laakiin maxaa sababay maxay dhibaysaa hadduu dhinteen waa iska caadi dhib ma lahan maxay dhibaysaa in xog walba ku saabsanid aabbaha anigu waan ka warhay laakiin waan iska aamusay sababta loo dila maxay tahay aabbaha qof walboo dembiilaha oo dembi geystay qaybtiis waa inuu maraa yaa noo harsan markaan adiga adeerkaa deef aniga waan kugu kalsoonahay waxaan rabaa hawshaan oo dhan inaad soo gebagabaysid kadibna aad dib iigu soo laabatid oo ku baryaa arrintaa naga xalli kadibna hoolahan oo dhan faraha kala bax nolol farxadla ayaan ku noolaanaynaa
xaggeenaadina markay dhammaato aniga isoo raac alxasil waan kaa sitay wan imida maxaad igu yeertay ii sheeg dhulka aad taagan tahay waa dhulkii anigii aabbaha aan isku haysanay haddii aad rabtid wax walba inaad ogaatid meeshii aan ku faro waa inaad tagtaa oo aad iigu timaada halkaas waana ku sugaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba mid ayaan kaaga digayaa ha isku dayin dhaqdhaqaaq inaad samayso يلا بنانك يا سعي بنانك حق كرسي ولا هذيك كرسي كان قاد اي حق ها كرسي قاس فريسو ماشي فريسو ابيحن يا هديرانين وركيك مخشي وردي هاو فريس هالكان فريس adigana iska bax bax aniga socon ku dhahay saca war la qaado meeshan yalla fadhiiso saca hays martiin okay adeerkii si degdeg ah baad ku caafimaaday yaa kula tacaalay horta saaxiibkaygii oo adi adduunya badanaa ku dul fadhisaa laakiin unugana beesadaan haynaa marka tii beeseed anaa kugu soo gura hadda waxaa lagaa rabaa adduunyadan aa haysid inaa igu soo wareejisid dhulle haddii aad u baahan tahay aniga ayaa diyaar kula ah dhul iska dhaafe dhulal aan ku siinaa oo tiro badan anigana diyaar waxay iga tahay 70 milyan gacantaada inaan ku soo war aniga lacag oo keliya ayay dantaydu tahay adoogaa khiyaanadaas wado saana sii leeshiinay ka waran beeslan u darneed aniga dad shaqo kuma lihi beesa haddaan helaayo qofkii dhimanaya ha dhinto ulujeeddadayda iyo dantaydoo dhan waxay tahay inaan horumar gaaro hanti badanna aan yeesho waayele aka baq inaan ku dhatii beeseed ani igu ogaw buunsha camal anaa kugu firdhinaaye aniga dadka murugtooda dhanba mi hayso sababtoo ulujeeddadayda haddaan gaaro dad shaqo kuma lihi aniga ciddii siyaasadda ku fadhiisanaysa ha ku fadhiisato ciddii baaba'aysana ha baaba'do aniga ulujeedkayga waa hanti haddaan helo waxaad doonto waa ku siinaa hawshaad rabtidna waa ku fududaynaa waa igu og tahay hantida anaa hoosta kaa soo gelinaan ku dhahay hawa adduunya dhan waa cune shacabkan shaqo kuma lihi hawsheeda ii soo fududee lacagteeda sida uu dhaqsiyaha badan aan helo sidan ayuu ahaa aabbaha khayaanoolo caddaysta ayuu ahaa dantiisa mahayna dan kale kama fikireen ulujeeddadiisa dhan
hanti inuu helo ayay ahayd qofuu ka naxaayay haba yaraatee ma jirto aniga xataa wuxuu isku dayay inuu idilo muxuu idili raba mataqaanaa 25 milyan oo keliya ayuu doonayay nafsadda inuu ii dhaafsiiyo aabbahaada nin fiican ma ahayn war haddii la isdilaya xataa 25 milyan oo keliya maa qof walaalkaa u dilaysaa adiga midaas ma samayn lahayd ii sheegaan ku dhahay ma 25 aan la isku dilaa adigane doqon ayaad ahayd maskaxdaadana ma joogin war aabbaha nooca aad arkaysid ayuu ahaa khayaano waa dhammeeyaan ku dhahay dantiisoo dhan waxay aad inuu lacag yeeshto oo keliya bes qofoo ka fikiraaya ma lahayn walaal ma aqoonin qof uu yaqaani haba yaraatee ma jirin aniga haddaan isbeddelayna aabbahaaga dartiisa ayaan isku beddelay markaan arkay inuu xun yahay waddada wanaagsan ayaan ku soo dhacay maxay soo fiirnaysaa sewa ya akhay khaladkaan gali maxaa waay abaa heshiisaan la gali kadibna walaalkiis raba inas dilo saan in lagu subi waa kurooneed adooga iska dhaaf ya akhay kaas abaka walwal aan soo fiirnin waa saxneed wixii dhici lahayna way dhaceen annaga waan ku qasbanayn tallaabadan inaan qaadno waddo kale oo noo furneed haba yaraatee ma jirto war adiga horta mala socotaa lacagtan aad ku raaxaysan jirtay aniga inaan kuu soo shaqeeyey intee ka keentay war muu haysid wiilkaygii aamus waryaa waxaad tahay nin khiyaano badan ha maxaa kuu kalif banaanku baxay sax yalla banaanku bax dhaqan xumadan iyo khiyaanadan miyaad aniga igu soo korisay waxaad tahay adeer xun deef isdeji faysowsan ha igu qasbin howlo aan iska dhaafay inaan dib ugu soo laabto ay ani hooshii ii dirtay waa soo dhammeey baaruuna bannaankan u diray laakiin khabya ku hortaala khabyadaanna waxaa laga rabaa inaad dhammaystirtid maxaa u joogtahay marka maxaa sidaan u samaysay adeer ninkan inaan dilo dad maxaa kugu kalifay aniga halkan waxaan u imid adiga inaan ku dilo laakiin ninkaana gacanta iga dhacda ha u bixin waana kaa sii tegay nabadii cashirka adaa hore u dhigay laakiin maxaa u dishay sidan maxaa u samaysay adiga ma waalan tahay maxaa u samaysay ku leeyahay fiiri kaali mar hore inaan ku dila ayay ahayd waa halka arrin oo keliya aniga aan ku khaldamay siyaasaddane noocan way ku tustaa laakiin hadda kadib waxaa igu ballan ah qof inaysan iga badbaadin wixii iga haroo dhan waan laynayaa ciddii iga soo horjeesato iima noolaanayso ballan waayo tallaabadaas waa inaan hadda ku dhaqaaqaa mar ayaan qalad galay laakiin mar labaad inaan qalad galo lagama yaabo intee u socotaa hadda intee u socotaa kaalay kaalay halkee aadday siyaasadda noocan way ku tusaysaa waxaad tahay bukaan socod waxaad dishay aniga aabbayo adigu kula dhashay waxaad kaloo iga dishay baaruudayda intay gorgor tahay halkaan isaga tag
inta aanu kuga dhaqmin sida wuxuusnimadaada uga dhaqanto aniga aabbahay iyo weliba jacaylkayga waa kuu dan waxaad tahay nin aan danqan damiirna aan lahayn wakhti walbana fiiriya dantiisa iyo lacagta hortaalla xayawaanka waad ka liidataa wiilkayga aniga wax walbaan samaynaya adiga dartaa ayaan u samaynaya wax khaldanna ma samaynaan nin xanuunsanayaa tahay weliba xanuun la ildaran aabbaha wuu la socday waxa annaga naga suurogeli karo waayo danaheenna ayuu ka soo horjeestay annagana waddadeenna ayaan ka leexinay sababtoo ah xisbigan dhib ayaan ku soo dhisnay adigana looma baahna inaad ka tagtid wiilkayga waa ku baryaa baaruna maxaad u dishay taasna ii sheeg adigay rabtay inay kaa fogaysa aniga ciddii arrintaas isu daydana waddadayda ayaan ka leexinayaa adduunyadana ma iisii saarnaanayso wararkii ugu dambeeyey ee haddana soo garay ayaa waxay sheegayaan buundo korkeeda in laga helay ninka lagu magacaabi jiray abbajoonka meydkiisa ilaa iyo haddase lama oga cidda ka dambaysay dilkaas booliiskiisa baaritaan ayay wadaan wixii warka soo kordha annaga ayaa dib idinkaga soo sheegi doona cidda dilkiisa ka dambaysay balse meydkiisa ilaa iyo hadda waxuu yaallaa qaybta c i d da mararka qaar nolosha waxay kugu qasbaysaa waxyaabaha qaar inaad beddeshid deefna noloshiisa wuu beddelay हम थे कहाँ ना याद कर फिर से मुझे ईजाद कर खोल देना मुझे आजाद कर खोल देना मुझे maxaa kugu dhacay maanta hore ayaan ku raadinaya deef adigana halkan ayaad joogtaa maxaad ugu soo dhumatay meeshan qofna kuma oge nafteeda cidlada raallinka aniguna magacayga waan bedela deef leemayraa nin kalead baad i guubaysa haddiiba sidaas taa adigana magacaaga aad bedelatay anigana magacayga waa inaan bedelaa sababtoo magacayga iyo magacaaga waa isku lamaan soo maaha qisadeedu waxay noqotay naftu naf bay rabtaa naftuna naf bay rabtaa sababtoo aniga deef waan jeclaa balse isaga baaru ayuu iga doortay